وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحda qaranka isugu jira wasaaradda iyo xildhibaanada shaqaalaha sharafta iyo qiimaha leh ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada madaxda kale ee marti sharafta warbaahinta mar labaad waan salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulley annaga maanta hadal badan inooma yaallo hadalkii iyo xidmadii wasiirka wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii guud baa halkan warbixin runtii qiimo leh ka bixiyey. annagu inaan iyagana sii macasalaamayno kuna soo dhowaano wasaaradda cusub iyuunbaa noo harsan inaynu dhaano. marka ugu horeysa runtii waxaan halkan uga ducaynayaa wasiir garaad inuu ilaahay caafimaad sareecana siiyo. waxaa wasiir oday buu ahaa qiimo leh, go-aha ku qiimo lahaa. marar badan waan israacnay, xitaa shirarkii turkiga waan israacnay. wuxuu noo ahaa oday buu ahaa. arrimuhu markay kululaadaan u dhexdhexaadinayay nin qiimo kale dalka ayuu ahaa. taariikh badanna soo maray. ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu caafimaad sareecana awsiiyo. innaguna insha allahu tacaala waynu ka warhayn doonaa, waan la socon doonaa kolba xaaladiisa siduu noqdo. aad iyo aad baan ilaahay uga baryaya in caafimaad degdega siiyo. intaa dabadeed annagu maanta waxaanu nahay kulley markii aan dhowr wasaaradood baan kasoo shaqeeyay. mar wasiirka caafimaadka ahaa, fadhiweytana wasiirka xanaanada xoolaha. maalin walba marka maanta wasaaradda xanaanada xoolaha aan imanayay waxaan aad iyada uga jeclaa inaan wasiirka caafimaadka noqdo. waayo profeshkayga dhakhtar ahaa. haddana maanta haddaan ka tegay wasaaradda xanaanada xoolaha aad iyo aad baan ugu farxay inaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo dhakhtar baan professional ahay. waxaan ku leeyahay aan u horyoobay haddii wasaaradda xanaanada xoolaha maa shaqadii aan ka tegay waxa weeyaan shaqaalihii aan ka tegay oo aan aad isu baranay yaan aad u jeclaa. waxaa ugu horreeya siyaasaddeeda ka mid ah inaan shaqaalaha wasaaradda arrimaha bulshada furuuqaadkooda, xidhiidhkooda, isku xidhkooda waxay noqon doontaa siyaasaddeeda koowaad insha allahu tacaala aan ku dhaqi doono. waayo annagu waanu imanaynaa, waanu tegaynaa. sidaa maantaba ka muuqata muddo dheer baan wasaaradda xanaanada xoolaha joogay. laakiin waxaan joogayba waxay ahayd hillaac bay ahayd waagaa ka tegay. tanna muddo kooban baa la joogayaa. aniga iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud waxa harayaa waa shaqaalaha idinkaa rasmiya. annagu waxaa noo noqon doontaa macallimiin baa noo noqon doontaa. annagu khibrad umalihin fara badan wasaaradda umalihin. caabu hadli mayne waanu idin dhegaysan doonaa, waanu idin hurin doonaa, waanu idin jeclaysiin doonaa. intaa innaka nalaga doonaya waa intaa. insha allahu tacaala wixii aan noo sheegtaan baan diin ku ahanayna, waan diin doominaynaa ee idinku fulmayno. markaa shaqaalaha haddaad hagaajiso shaqadu hagaagi. haddaad shaqaalaha daryeesho, haddii shaqaalo isku xidhnaato, haddii shaqaalo khibradooda kor loo qaado, shaqadu way hagaagisaa. fara badan ay shukriya awibaarin ka sheegeen faraha badan waxaa sababay xooggaa idinkuna ay hogaaminayseen, iyaguna idinla shaqeynaya. wasiir ku-xigeenka iyo agaasiminka tegayna aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. shaqada wanaagsan halka soo gaadhseen. annagana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu halkii ka sii qaado. shaqaalahana waxaanu ka codsanaynaa inay gacantii siin jireen wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimahana annagana na siiyaan insha allahu tacaala. talabaadaan ku darayo waxay xagga shaqaalaha noqoto insha allah waxaan ku daagi doonaa wixii siyaasad ah ee ka qabiyaan sida ay shukri sheegtay wasaaradda iyo wixii aan ku kordhin karnaba inaanu bilowno insha allahu tacaala muddada aanu joogno. haddaana wasaaraddu lahayn siyaasad hagta, wasiirkuna shaqadiisu waxa weeye inuu sameeyo furuuc iyo siyaasad hagta wasaaradda mustaqbalka dheer iyo ka dhow iyo ka dhexe. mar labaad aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. waa waqti badan baynu fadhina, hadalka idinku dheeran maayo. insha allahu tacaala shaqo wanaagsan baan idiin rajaynayaa. waynanu sii sugootaynaa madaxdeennii wasaaradda ee shukriya cawin lahaa. shukrina waxay joogtaa wasaaraddii cilaanka oo wasaarad aad iyo aad u muhiima. waxaan jecel lahay bacdamaa wasaaraddeedii ay ahayd tan inay qeyb wanaagsan ka qaadato markay wasaaradda cilaanka ay tagto sidii ay u horumarin lahayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. aad iyo aad baa umahadsantiin. wasalaamu calaykum.